أصحابتي الغالية سؤال هذا ولكن هارون يوسف ما أنتم حاذين ولا فيديو عجيبة والله يا بدونتين مركا فيديو إلى داوتين مركا أصحابتي الغالية إنتان فيديو كهالين وموضوع فيديو كهالين مركا هوري سيدقنانا إلى داوة فيديو هدو إذا أنفعوا فيديو كيشين هدا فيديو كيشين waxaan ka codsanayaa inaad like video ii saartiin sidoo kale ay share gareysiin marka inta video ka hadlin mowduuciisa bal hal mar ila daawada video أصحابتي السوداء هذا وحأمرنا فيديو إن إلى لم يستين فيديو سيدا أجيدين فيديو كهلا ولا لتني ماذا قيمة لهذا فيديو كان وقبر هندي يويل مسلم ولا لا قوانا حيود باردقيان يد كمد عيدها قالوا حيود باردقيان مركا dhaqankooda waxaa hindi markay ciidaha soo dabaaldegayaan waxay sameeyaan waxay isku dhiftaan waxaan hadda biyahan kalarka ka samaysan si qofka uu u caddeeyo inuu xilligii ciidda la joogo oo dabaaldega ay caddeen u tahay wiilkan waa wiil muslim ah qamiiskiisa wato iyo koofiyadii sida u jeediin marka waddadii uu soo mari lahay hadduu sida hadda ay tahay kusoo mari lahayd waxaa laga yaabaa labadooduba inay wasaqoobi lahayn marka wiilkan waa wiil muslim ah shaqana ma ku lahan dhaqankan hadday u dabaaldegayaan isaga iyo dadka walaashiisa iyo dadka markaas kusoo tuurtuura ilmaha yararka marka si ay u badbaadiso walaalkeed darteed waxay isku dhigeen wixii soo tuurtuureen dadkan markii wixii dhan ka dhameyso isdhahda wax ma ku harin meesha kabacdi waxay leedahay marka soo bax si waxaan wasaqda ay ku gaarin adoo nadiifna masaajidka u aadid marka fiidiyowga waxaa tusaale noo yahay tusaale fiican meesha u qaadanayna oo fiidiyowga tusaale u yahay walaaltinimada qiimaha ay leedahay wax weyn oo halkan lagu soo koobi karo hal fiidiyowna laguma hadli karo laakiin fiidiyowgan wuu soo jiitay waxaan u soo qaatay qofka xilliga oo dhibaatada ay jirto iyo xilliga oo qofka oo nolosha fiican uu ku jiro waxaa la qofka walaalka mar walba inuu walaalka ahaa qofka waqtiga oo adag ku bedelin laakiin markaa dhahday walaalka xilliga uu dhibaataysan yahay oo nolosha adag uu ku jiro waxaa wax walaaltinimo lagama dhexeyso laakiin markuu ilaahay hodantinimo ama nolol u fiican uu galo haddaa dhahday walaalkayga waayo oo markuu rafaadsanaay ama uu dhibaatada ama garabka u kaa rabay garabkiisa ama ka muuqaweysa markuu noloshiisa ilaahay uu horumar siiyo ama nolol fiican u helo ma ahan inaa dhahday walaalkii waayo walaaltinimada mar walba dadka isku dhiigi anaga muslimnimaa noo sii dheer qofka inuu walaalkee yahay oo isku dhiigtiin maxaa kasii wanaagsan muslimiinaan dad walaalo oo muslimnimo ku dhashaanahay marka waxaa ku dhiirigelinayaa dhalinyarada dhalinyaranimada waa xilli adag qofka walaalka xilliga uu garabka kaaga baahanyaa walaalti horaa waxaa loo dhahay labadii walaalaa ninkii lacag laaweyn waxaa arkay walaaltinimada hadda waxay noqotay heer
labadii walaalo oo lacag leh bas iswalaashadaan isdhaansadaan. waxaa kuwa kale oo hantida haysanin oo nolosha hoos ku jira leh aan waxba laga soo qaadin oo markii waxyaabaha waaweyn dhaca bis loogu dhaco, laakiin nolosha inteeda kale waxaa waaye qofkaas qiimo loo yeelin. wax arkaya walaalo qaar wax arkaya walaalkiisu horfaadsan ama laga yaabo inuu baahi u dhinto kale ama baahi cidiisa ay ku jiraan kale, in waxaa markuu dhinto hanti meel ka imaada la qoolin iyo xoolo meesha lagu qaado. laakiin qofka markuu walaaltinimada kaaga baahnay oo garab kaaga baahnay waxaa waaye maadan u imaanin markuu faadsanaay maadan u imaanin, laakiin mar uu dhintay ina geeridiisa hanti meel ka imaada la qoolin. laakiin markuu hantidaas u baahnaana oo ka baahday oo laga yaabo xataa qaarkood inay baahi u dhinteen, laakiin geeridooda tacsidooda waxaa waaye laga qalin intaas oo geeli intaas hore. marka fiidiyoogeena maanta waxaa intaas ka badan ma sii wadi karo. waxaa walaaltinimada qiimaha idhadana waxa ogaan karo walaalka wanaagsan. marka dadkii is walaashado oo rafaadka iyo dhibka isla qaybsada ilaahay naga dhigo. fiidiyoogeena haddaa ilaa dhammaadkii la socotay waxaa kaa codsanayaa inaad like noo saartid.